عاشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا، فكن فيها مجدا واستبق لجناني. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان، فضل الإله الواحد الديان. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. إن شاء الله maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay laa takhruju almar'atu min baytiha ilaa biidni zawjiha fain lam ya'dan lam yujzi alkhuruuj, oo ay micnaheeda tahay haweeneeda ma bixi karto ilaa iyo idinka zawjkeeda hadduu fasixin bixitaan uma banaano. haddii aynu qaadana amarka noola amraayo waa mid aniga aan ku liibaanayno, haddii aan diidnane waa mid aniga aan ku khasaarana aakhiradan iyo adduunkeenaba. haddaba walaasheeda muslimadda aheeday ma rabtaa janno, waa sifaadka jannada aad ku gali leed mid ka mid qaado. xadiis baa jira oo laga warinaya ibnu cumarna wuxuu leeyahay kaanat imra'atu licumara tashhadu salaata subxi waalcishaaa fi ljamaacati fi lmasjid. waxay ahayd cumar haweeneediisa mid isku diyaarisa salaada subxeed iyo salaada cishaa jameecada masjidka dhexdooda. markaasaa cumar haweeneediisa la dhahay lima takhrujiina waqad taclamiina ana cumar yakrahu dalika wayahaaru. maxaad u baxaysaa adigoo og cumar arrintan bixitaanka inuu nacban yahay uuna ka maseeraayo. markaasay tiri haweeneedii cumar wamaa yamnacuhu an yanhaanii, oo maxaa u diidaya tiri cumar inuu iga reebo bixitaanka, wallaahi hadduu iga reebo in aan joogaayo. marka haweeneedan bal fiiri, iyadoo la dhahayo maxaad u baxaysaa ninkaaga arrintan wuu nacban yahay, maxay ku jawaabday? ma dhihin maxuu igu diidaa, ma dhihin. waxay dhahdeen hadduu uu ii sheegi lahay mise hadduu uu ii diidi lahay cumar arrintani waa ka heli lahay. maanta anaga maxaan suubinaa? anagoo nala celinayaaba iska baxnaabo, ninkii oo raali ahayn aaba iska baxnaabo. markay dhahday haweeneedii cumar maxaa u diidaya bixitaanka inuu iga reebo, waxaa ugu jawaabaya hadalkaasi raawigii xadiiska soo wariyey wuxuu leeyahay yamnacuhu qowlu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. waxaa u diidaya cumar inuu bixitaanka kaa reebo hadalka rasuulka naxariis nabadgeliyii korkiisa ha ahaatee. wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam laa tamtacuu imaa allahi masaajid allah, ha ka mancina addoommada alle masaajidada ilaahay. marka waxaa la leeyahay haweeneedii cumar waxaa u diidaya hadalkaasi inuu bixitaanka kaa reebo. marka xabiibaatii waad u jeedaan cumar wuxuu ka maseerayo haweeneediisa masaajid aadayso. bal ka waran maanta anagoo aasanayna aroos iyo munkaraad iyo balaayo, weliba anagoo raggeena raalli aanan noogu ahayn. marka waxaan idin oran lahaa aan iska daana arrintaasi. barnaamijkeena intaas baan kusoo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum waraxmat فيك الرجاء يا أنت الحليم، الرحمن الستار ملك الملك الغفار.